iyada oo wali dagaallo culus oo lagu riiqday ay ka soconayaan deegaano ka tirsan xuduudda labada maamul dawlad deegaan ee Tigray iyo Amxaarada. wararkii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya ka imanaya waxa ay sheegayaan in ciidamada maamulka Tigray ee TPLF ay qabsadeen 24 saacadood ee ugu dambeeyay deegaano ku teedsan xuduudda labada maamul, iyaga oo dhinaca kalena ku baaqay inay dagaal ka geli doonaan dhinaca xuduudda Eritrea oo ay sheegeen inay ka soo dhacsan doonaan dhowr degmo oo laga haysto sida ay sheegeen. waxaanay dagaaladani ku soo beegmayaan markii ay si rasmi ah toddobaadkan u jabtay xabad joojintii ay dawladda dhexe ku baaqday, inkasta oo aanay marnaba TPLF si rasmi ah xabad joojintaasi dhinaceeda uga dhaqangelin ama aanay ugu camal falin. xoogagga TPLF ee gobolka Tigray ee dagaalka ka wada waqooyiga dalkaasi Ethiopia ayaa waxay sheegayaan in ay ku hanwen yihiin in ay dhammaanba sugaan deegaamadooda, iyaga oo sheegay in degmooyin hore looga haystay ama maamulo kale ay ka haysteen ay soo dhacsan doonaan. sidoo kale hadalkii toddobaadkan ka soo baxay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cagjar ee ahaa in dawlad deegaanku ay dawladda dhexe ee Itoobiya ku taageeri doonto guutooyin ka tirsan ciidamada Liyu Police ee sida militariga u tababaran. waxa iyana in ay dawladda dhexe ee Itoobiya ku taageersan yihiin dagaalka ka dhanka ah TPLF shalay si rasmi ah ugu dhawaaqay maamul magaalooyinka Harar iyo Diridhaba oo sheegay in ay ciidamo u dirayaan ku soo biira la dagaalanka TPLF sida ay warbaahinta Itoobiya u xaqiijiyeen. sidoo kale ciidanka xoogga gaarka ah ee Oromiya ayaa si toos ah ugu biiray dagaal ka dhan ah TPLF. waxay la midoobeen ciidanka gaashaandhigga Itoobiya sida ay xalay baahisay wakaaladda wararka Itoobiya ee ENA. ciidan tiro badan oo Oromo ah ayaa u dhaqaaqay jiidda Canfarta iyo Raaya. warkaasi waxa warbaahinta u xaqiijiyay Tesfaye Dabe Wakjira oo ah ku-xigeenka xeeraryaha guud ee dalka Itoobiya. waxa burburtay gabi ahaanba xabad joojintii halka dhinac ahayd ee ay dawladdu hore ugu dhawaaqday ee ay ka agajiidayeen in ay fuliyaan ama u hoggaansamaan TPLF. dagaalka waxa ku soo biiray 40 deegaan ee kala ah Soomaalida, ismaamulka Diridhaba, Harar iyo Oromiya, iyada oo hore ay dawladda dhexe si adag ula safnayd maamulka Amxaarada oo ah iyagu kuwa bartilmaameedka koobaad u ahaa TPLF. sidoo kale deegaano kale ayaa laga yaabaa in ciidamo ay u diri doonaan gobolka Tigray maalmaha soo socda oo ay ciidamada dawladda dhexe ee federaalka Itoobiya ay ka barbar dagaalami doonaan, taasi oo faraha ka sii bixin doonta xaaladda cakiran ee dalka Itoobiya. wakaaladda wararka Itoobiya waxa ay sheegtay in ciidamada Oromiya, Sidaama iyo shucuubta koonfureed hore loo geeyey jiidda hore. wariye ka tirsan wakaaladda wararka AFP oo Arbacadii booqday magaalada Adi Arkay oo u dhow xadka Amxaarada iyo Tigreega ayaa arkay kumanaan dagaalyahano Amxaara ah oo sugaya amarka dagaalka kadib markii maamulka Amxaaradu 2 toddobaad ee ugu dambeeyay ay ka howlanaayeen hub iyo ciidan urursi, taasi oo keentay in xataa dhalinyaro rag iyo haweenba leh oo mutadawiciin ahi si iskood ah ay dagaalka isku qoreen oo lagu soo daadgureeyay gaadiid tiro badan lana geeyay deegaanada colaadu ka taagan tahay. weli ma cadda tirada ciidanka ay deegaanadu u direen dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya, balse waxaa xaqiiqo ah in ciidamo aad u tiro badan la geeyay, walow ilaa hadda goobaha uu dagaalku ka socdo ay guulo ka gaarayaan kooxda TPLF oo imika badi dhulka deegaankooda gacanta ku wada dhigay. xoogagga TPLF ayaa qabsaday inta badan deegaanka Tigray, waxaanay sheegeen in ay qorsheynayaan sidii ay dagaalka u sii wadi lahaayeen kadib markii ay dhowr maalmood ka hor gudaha u galeen magaalada Humeera, balse markii dambe ay dib uga soo baxeen ka hor inta aanay roobabka xagaagu soo xoogaysan. Humeera waa magaalo lagu muransan yahay. dagaal ka dhaca magaalo xuduudeedka Humeera waxa uu saameyn culus ku yeelan doonaa Suudaan iyo Eritrea, waxaana dhici karta in uu sii huriyo isku dhaca qowmiyadaha Itoobiya. markan waxa ay u muuqataa in duulaan ballaaran lagu qaadayo TPLF, iyada oo xukuumadda Itoobiya dawlad deegaamada oo dhan ku amartay in ay dagaalka si buuxda u soo galaan. ma xasuusataa khudbaddii Abiy Ahmed ee bishan waxa uu baarlamaanka u sheegay in la diyaarin karo 100,000 oo askarta deegaanada ah wax ka yar hal toddobaad, sida uu maalintaasi uu khudbadda jeedinayay ku tiraabay. waa hadal u muuqday in dawladda dhexe ee federaalka Itoobiya ay samaynayso abaabul ciidan si duulaan xoog ah oo ballaaran oo rogaal celis ah loogu qaado TPLF. duulaankaasi oo weliba ku dhisan qowmiyadu, waana arrinka aadka looga digayay in muddo ah in dagaalka Itoobiya isku bedelo qowmiyadu, kaasi oo dhibka ka dhashaa aanu qarniyo hadhi doonin, Itoobiyana ka dhigi doono waddan burbura. deegaano dhowr ah ayaa diyaariyey ciidamo badan, qaar kalena waa ay qorsheynayaan, laakiin lama oga tirada ciidanka ilaa hadda la diyaariyey.
iyada oo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya xogo hoose ay tilmaamayaan in ay diyaariyeen kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Liyu Police. ciidanka la diyaariyey waxa toos loogu diri doonaa waqooyiga Itoobiya ee uu dagaalku ka socdo. Ma cadda jiidaha ay ciidanku ka dagaalami doonaan marka laga reebo ciidamada laga keenay SNNP Debub oo la hubo in ay ka dagaalami doonaan furinta galbeed ee Tigray. waa dhulka carrasanka ah ee ay ku muransan yihiin Tigreega iyo Amxaaradu. ciidan ka socda Sidaama ayaa gaadhay magaalada Debre Marcos ee Amxaarada sida ay sheegtay Reuters. waxaa dhici karta in la galo dagaalka adagkii hore. dhinaca kale dowladda Itoobiya ayaa hay'adaha gargaarka ku eedeysay in ay hub siinayaan TPLF iyada oo dowladda federaalka Itoobiya ay dalalka reer galbeedka gaar ahaan waddanka Mareykanka ku eedeysay in ay u xaglinayso dhinaca maamulka Tigreega marka la eego eedaha ay warbaahinta u marinayaan mas'uuliyiinta dowladda federaalka Itoobiya. dalka Mareykanka oo ay sheegeen in aanu dhex ka ahayn xaaladdan. Ridwaan Xuseen oo u hadlay dowladda Itoobiya ayaa sheegay in ay ka fiirsanayaan heshiisyada ay kula jiraan qaar ka mid ah hay'adaha samafalka ah oo uu ku eedeeyey in ay hub iyo saanad kaleba siinayaan kooxda TPLF, taasi oo ay hay'adaha qaramada midoobay ku tilmaameen wax lala yaabo. lama oga ama lama xusin wax magac ah, balse wakaaladda wararka ee AP ayaa qabtay in loola jeedo hay'adda WFP. xogta dagaalka u dhexeeya TPLF iyo Amxaarada kadib markii ay toddobaadkii hore gacanta ku dhigeen xoogaga TPLF magaalooyinka Korem iyo Alamata ee koonfurta Tigray, waxaa warbaahinta isna mar labaad ka soo muuqday madaxweynaha dowlad deegaanka Amxaarada oo shacabka Itoobiya ugu baaqay in ay u midoobaan kooxda TPLF oo uu ku sheegay in ay doonayaan in ay qabsadaan guud ahaan deegaamada Amxaarada. madaxweynaha dowlad deegaanka Amxaarada waddanka Itoobiya Agagnehu Tishagar ayaa si cabsi leh waxa uu ugu calaacalay guud ahaan dowlad deegaanada dowladda federaalka Itoobiya isaga oo sheegay in laga soo gaaro oo gurmad loo fidiyo maamulkiisa oo uu sheegay in uu yahay mid khatar ugu jira kooxda TPLF. madaxweynaha deegaanka Amxaarada oo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi muwaadiniinta Itoobiyaanka iyo kuwa Amxaarada ah TPLF waxay si cad ugu dhawaaqday dagaal ka dhan ah shacabka Amxaarada. waxaan ku jirnaa halkan masiiri ah, sidaas darteed nagu caawiya wixii aad awoodaan, ayuu qoraalkiisa ku soo dhigay barta Twitterka madaxweynaha dowlad deegaanka Amxaaradu isaga oo sheegay in lacag loo ururiyo ciidanka ku jira dagaalka. waxaa la aasaasay gudida dhaqaale ururinta oo loo bixiyey howlgalka ilaalinta damiirka. lacagta waxaa laga dalbaday dalka iyo dibadda. telefishinka dowlad deegaanka Amxaarada ayaa baahiyey meelaha lagu soo hagaajin karo lacagaha la yaboohay marka laga soo tago warbaahinta kala taageersan labada dhinac oo mid kasta uu guul ka sheeganaya dagaalka. haddana lama oga inta uu gaadhsiisan yahay khasaaraha ugu dambeeyey ee dagaalka dhex maraya Amxaarada iyo Tigraaga iyo cidda rasmiga ah ee gacanta ku haysa dhulbeereedka lagu dagaalamay. ma jiraan warar rasmi ah oo ka soo baxay maamulka labada deegaan ee Tigray iyo Amxaarada, balse waxay u muuqataa in si ba'an la isu farsaaray iyada oo xogaha hoose ee ka imanaya waddanka Itoobiya ay sheegayaan in ilaa imika dagaalka ay ku gacan sarreeyaan kooxda TPLF ee gobolka Tigray.